بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواده walaalyaal. horta wax badan kuma jiraayo. soo dhawaada. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa ni salaamay. waad ogtiin waddanka waxa ka socda. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu sameynayo waa waxyaalaha uu kala yimid maraykanka. nin kastaba markuu sii dhacahayo ayuu ma xasuusataan clinton waaguu sii dhacahayay oo weerarka uu ku bilaabay wadamada islaameed oo uu yidhi maya anigu dagaal baan ku jiraayo waqti hala iigu daro ee ay socon weyday. farmaajo sheekadii uu wadaa. marka qofna waqti ugu darahayana male. wuxuu dilahayana waa wiil soomaaliyeed. waxa dhimanahayana waa wiil hooye iyo aabba ay dhaleen ama gabar islaameed qaba. marka walaalayaal waxaan leenahay farmaajo intay goorgoortahay ha la iska qabto. farmaajo waxaan inii sheegayaa caaway oon usoo galay youtube-ka labadan berile maaragtay oo dhiigyacab yahay in maaragtay waxyaalaha uu sameynahayana waxyaalo la qaadan karin ay tahay. mideeda kaleetana laga gudbiyey dacwo weyn oo maxkamadda CIG uu aadahayo oo the court uu istaagahayo maxamed cabdulaahi farmaajo inuu assassina yahay. assassination uu sameynahayo maaragtay waxyaalo oo soomaalida ay baaba'een oo isku dirahayo qabiilooyinkii soomaaliyeed. maalin ku boodahayo puntland, maalin ku boodahayo galmudug, maalin ku boodahayo muqdisho, maalin ku boodahayo kismaayo, maalin ku boodahayo waad aragtaan waxa ka dhacaya gede iyo buulaxaawo iyo. marka waxa weeyaan hadda waxa meyd dhulka yaallo dhan waa ciidamadii dowladdu ay dirsatay weeyaan. maanta axmed madoobe waxaa la socda ilaaha garab taagan. xaqa ayaa reynahaya. waxaan nii sheegayaa soomaali maxamedey madaxweynaha dacwad waa laga gudbiyey. waxaana ka gudbisay waxaa qoladan lagu leeyahay united nationka. maxamed cabdulaahi wuxuu sameynahayo wax saxa maahan. qalabkii iyo ciidamadii qoryihii loo soo dhiibay oo loogu dhiibay inuu cadowga soomaaliya uga xoreeyo oo al-shabaabka uu ku baabi'iyo ayuu shicibkii soomaaliyeed oo innocentiga ah maaragtay u kicinhaya inuu dagaal geliyo, inuu Syria oo kale Soomaaliya ka dhigo, in wadamo islaameed ay nagu soo duulaan, in gobol gobol noola qabsado. ulajeedada uu leeyahay wasaas dhaqaalihii ugu badnaana waddanka bannaanka uu bixiyey. marka ninkan wuxuu isku darsaday dhiigyacab iyo tuuganimo, waana waxaanan soomaalida qabanin. marka wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi waxaan leeyahay intay goortahay haddaynan iska qabanin dadka muqdisho jooga waxyaalo badan halkaas villaduu fadhiyaa uu ka xukumhayaa uu wiilal soomaaliyeed uu ku dhammaynahaya. mar waxaa la rabaa wiilasha soomaaliyeed inay cadowga iyo xaasidka la dagaalaan mise inay ayaka dhexdooda wiilasha ciidanka ay iska dilaan. ciidamadeenni dhexdoodii isku baabi'inaya. ninka kismaayo joogo ciidanka soo wiilkeenni maaha, soo annagu maana dhalin ninka axmed u dagaalamahaya. marka walaalayaal waxaan leeyahay waxyaalaha qaarkood ha laga maarmo. haddaan laga maarmina dhibaatooyin badan ayaa ka imaanaya. soomaalida waxaa la rabaa awlaadooda iyo dhallinyaradooda iyo ciidankooda in loo istaago. barkee ciidamadii uu isku jebinayaa. shalay galmudug waad ogeydeen sunna wal jameeca bambooyinka iyo gaaska suntaha uu isticmaalay wadaadada culummada. horta waxa weeye reer galmudug ma dagaalamin, dagaalna asigu kulama jirin. galmudug wuxuu kula jiray ciidamada. sababtoo ana waxa weeyaan wadaadadu way ka dhismi weysay galmudug. galmudug waxa weeye dekad waa laga sameyn waaya hobyo. galmudug waxa waaye waxbaa loo qaban waaye. galmudug waxa waaye isbitaal waa loo dhisi waaye. odayaashan baa hortaagnaa. marka wax dagaalama ma ahayna waxay ahaayeen sunna wal jameeca dhexdooda kuwii dowladda la jiray iyo wadaadadii aqalkiina ayay kaa isdhiibay. saas ay tahayna waxay isku dhiibeen ankay wadaadadu dirma la diro la yiri waa isdhiibna ku dhaha dowladda laba goorro waa ku khasaartay galmudug. xaggu u socdaa marka ma magaalada muqdisho ay ka abaabulahayaan. marka anigu waxaan leeyahay farmaajo iyo khayre iyo ninka la leeyahay fahad yaasiin gacan kullaha lagu qabto. sayna macalin way ku raaxaysanaysaa dhiiggaas tirada badan. laakiin mid ogaada ilaahay waa qafuur raxiim. ilaahay waa qafuur raxiim. fahad yaasiin agtiisa ilaahay macno ka malan awlaadda uu dhalay nin kastaba inuu sanka iyo dhagaha dhiig ka keeno soo ugu raaxaysanahaya dhiigga soomaalida iyo dadka ciidamada dhimanahaya. dhagaha caruurtiisa ilaahay inuu dhiig sankooda iyo afkooda ka keena agtiisa macno ka male oo dhakhtar daaweeye loo waayo insha allah bidnillaahi alkariim. ilaahay agtiisa fahad yaasiino dad islaameed awlaadood
aad waxaad tiri dowlad u dagaalama maxaa dagaalka adigu frontier u noqon weyde maxaa u raaci weysa adigii farmaajo oo u hor socon weydeen haddaad xiniye leedihiin waa idinka ilmo islaameed waryaahoy ciidano kun jeer baan inii sheegay waxaa ciidan ku tihiin waa calanka ciidda shacabka soomaaliyeed ayaad ciidan ku tihiin maxamed cabdulaahi farmaajo waa dhacayaa bilaa u hare maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu tegayaa maxkamadaha ugu waaweyn oo c I g waanan ogyihiin waana loo sheegay wallaahi waa dhiigii cab waa ey waa la sheegay xaaraami ah waa la sheegay ninka xunkaa inuu dhiigii cab yahay oo ciil u qabay hawiyaha iyo daaroodka qaarkood intaasuu ku raaxaysanaya laakiin farmaajo iyo jilibka mareexaanuu ka dhashay iyo mareexaan waa uga dhammaatay dowladnimo taas inaad ku tashataanaa la rabaa mareexaan dowladnimo farmaajo iyo waxa lagu ogaaday ninka la leeyahay maxamed siyaad barre may fahamtay waraabe inaad tihiin waa la ogaado maalintii xil ama ammaano lagu dhiibto inaad saas wax yeelaysaan marka taasi waa taas marka waxaan leeyahay walaalayaal awlaadda islaameed iyo ilmaha islaameed oo xalaasha 9 bilood lagu dhalay oo maanta ciidana oo soomaalinimo raba inay wadankooda u xoreeyaan u dagaalamaan al-shabaab uga celiyaan oo ayaga kale isku dirahaya waa in la kala qabtaa mideeda kale naagta caytamaysa oo la sheegay waa la tusayaa waxay tahay don't worry waa la tusayaa naagta waa la qabanayaa waa la dacweynayaa cajaladaheedii waa la hayaa ay leedahay dadka hala bireeyo yah waa la qabanayaa don't worry waan ognahay meesha ay joogto waana la ogaan doonaa meesha ay ku dambaysana waad ogaan doontaan soomaaliya maxmed soo ogaada waana laga shaqaynayaa naagtaas don't worry meesha wax kasta sharci baa jira adduunyada naagtaanu yurub bay joogtaa scandinaviankay ku nooshahay marka waa la arkayaa bal naagtu qofka ay dili kartay breen karto waa loogu tagahayaa meesha ay joogtay bal hadna tusta waxay breen karto ama ay dili karto wata dhahaysa waa breynaynaa bal maxay breen kartaa hoosteeda le inay dib u fiirisaa fiicnaan lahayd hoosteeda inay dib u fiirisaa maxay breen kartaa iyo iska celin kartaa ay breen kartaa ayadoo kaleeto loo joogaaba waa looda fadhiyaa geedka hadalkaas yuuna kugu soo noqon laakiin ya dad waa la daafacaa saas looma daafaco ciidanka farmaajo uu geeyey asaga ma dhalin sayna macalinna ma dhalin may fahantay hooyo soomaaliyeed baa dhashay aabba soomaaliyeed meydadkoodii ciidamadii uu geeyey farmaajo meydadkoodii dhulkay dhooban yihiin ma soo aruuriyey meydadkii ma uuna soo aruurin etoobiyaanna dabaduu ka wataa waa ogaanaynaa etoobiya meeshay ku dambayso nin dhaxaa waa ku faaneen oday xunoo ayaan dhaweytana caytamahayo naag jamaikaana oo intuu qaatay asoo cabsan oo taleefanka dafay waa nin weyn waa la ogaa dhagahii ka garaacday dhagahii ka garaacday facebookyadu ordahaya naagta maanta dhahaysana waxaan biraynahayaa odaygaasay la mid tahay may fahantay waxa ay birayn karta anigu waa rabaa inaan ogaado naagtaas insha allah waa imaanayaa magaaladaa joogta don't worry inaan ogaadaan rabaa qofka aad birayn karta adi may fahantay aadaad u mahadsantihiin reer americana dadka taleefanada isoo gaarsiiyey waana sii gaarsiinahayaa dad badan oo soomaaliyeed marka bal aan ogaano gabadha soomaaliyeed oo xiniyaha waaweyn loo tiri dad baan biraynahayaa meesha ay ku dambayn doonta aakhirkeeda ayadana ya taas waa ogaanaynaa meydadka waxaan leeyahay soomaalida oo muqdisho ciidamada laga diray oo soomaaliyeed oo meydadka dhooban buulaha ahwo oo mas-uul ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo dadki lahaa waa inay meydadkooda soo gurtaan haddayna bahalla meesha ku cunin haddii dee axmed madoobe iyo dhallinyarada kaleeto dhinaca axmed madoobe iyo janan iyo ka socday dad islaana weeyaan kulleyba intay god u qodaan iska duugaan bilaa jinaaso bilaa salaad la-aanna dee kulleyba waa loo ceeb asturay qofka bilaadanka haddii waxaasoo dhanna farmaajo aa dembigaas qaadanaya farmaajo awoodoonu lahayn uu rabay inuu isku tilmaamo wuxuu iska dhigay calashaan maraykan baan ka imid madaxweynaha maraykanka markuu sii deganayo sanad kasta dagaal uu galaa waa arkaynaa adiga insha allah waa arkaynaa laakiin waxaan ku leeyahay waxaan wax soconayo maahan wax meel dheer gaarayana ma ahan waana wax dhibaata ka imaanayso may fahamtay marka insha allah biidnillaahi alkariim waana la qeyrahayaa soomaaliya waxaad ogaataan bila soomaaliya intaad tagtaan qoorta intaad kusoo dhegtaan inta maxkamaddu ka imaanayso iyo inta gudbisay oo looga yeerahayo farmaajo maxkamadaas in libertaa aan la siin asaga iyo Fahad Yaasiin oo la xiro xabsiga la dhigo kulleyba dhiigga Fahad Yaasiinna waa inay xalaalsad u ogtihiin basamaha marka yuuna in ka fakan Fahad Yaasiin 5 baasaboor buu wataa waa loo sheegay adduunkoo dhan waa Kenyana waa loo sheegay mana marti gelin karto
sanadka maanta tuu kenya ku sameeyey waad aragteen wuxuuna ugu talagalay ankii ciidamada habeenkii intay xuduudka maraan inay soo dhammeeyeen kenyaatiga ninkii ballan qaaday wuxuu ahaa ninka lagu leeyahay Fahad Yaasiin wuxuu yidhi xuduudkaa la dhaafo uu yidhi markaa kenya u gashaan uu yidhi ciidamada xuduudka joogo waardiyaha maaragtay borderka dile uu yidhi yuu ku leeyahay mataqaanaa ciidamadii farmaajo oo waxay u galeen moogtahay waa waxay ka dambeeyaan farmaajo iyo Fahad Yaasiin marka Uhuru Kenyatta dowladdiisa waxaan leeyahay ninka la leeyahay Fahad Yaasiin inaad gacan ku qabataan iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wadankiina ya marka taas ay inii sheegayaa walaalayaal nin adduunka meel oo aadahayana mala farmaajo xabsi buu ku urahayaa aqalkiisa dambe waana ogaan doontaan taas keliyana laguma hayo oo kiileerka waxyaalo badan baa lagu hayaa madaxweynaha Soomaaliyeed marka walaalayaal waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh we see you tomorrow